بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharkii saddexaad ee MS. Casharkan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay formatting text, qaabka loo format gareynayo qoraalka. Halkaa marka waxaa noogu diyaarsan sample text qoraal oo tusaalahan aan soo qaadanay ayaa halkan noogu diyaarsan. Markaad rabto inaad qoraal wax ka beddesho, marka hore qasaba inaad qoraalka highlight saarto. Sida highlight loo saaro hore aan soo baranay, inaad left click mouse-ka aad qabato kadib dhanka midig u jiido ayaa qoraalka highlight loo saaraa. Okay, waxa ugu horeeya marka format text aan baranayno font ayaan ka bilaabaynaa. Font waa farta inaad beddesho. Waxaan ku xijinaynaa wax la font style, kadib font color, and then font size, text highlight color, ugu dambeyn waxaan baranaynaa wax la change case. Okay, sample-kan aan isticmaali doonaa farta markaa ka beddelaysid. Farta markaa beddelaysid marka koowaad waa highlight garaynaysaa. Marka sidaa u highlight garayso ama aad u doorato waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay font. Click markaa furto farta la aragtida ayaa halkaa ka dooranaysaa. Intaad rabto ayaa dooranaysaa sidaas farta ku beddesho. Okay, waxaa noogu xiga font style. Font style ilaa 3 qayb loo qaybiyaa: bold, italic iyo underline. haddii aad rabto inaad farta bold ka dhigto markooda dooranaysaa. Markaa sidaa u doorato kadib waxaad tegaysaa halkan bidan ayaad click siinaysaa. Markaa farta isbedeshay bold ayay noqotay. Okay, waxaan ugu xigaa italic. waan dooranaynaa farta marka hore. Markaa sidaa u doorano kadib waxaan select gareyn doonaa I oo italic loo soo gaabiyey ayaad click siin doontaa. Farta markaa isbedelaysaa italic ayay noqonaysaa, jif ay noqonaysaa. Okay, waxaan ugu xigaa underline, in hoos laga xariiqo. waad dooranaysaa farta kadib waxaad tegaysaa meeshan u ay qoran tahay. click markaad siiso underline lagu sameeyo hoos waa laga xariiqo. waxaa kaloo samayn kartaa laba xariiqina hoos kaga marin kartaa, waana camal dooran kartaa. Okay, font kala farta haddaa beddesho rabto inaad ka beddesho colorka waad dooranaysaa kadib waxaad tegaysaa halkan qoran tahay font color, waa furaysaa kadib colorka rabto ayaad farta u beddelaysaa. Okay, font size farta cabirkeeda haddii rabto inaad beddesho waad dooranaysaa marka koowaad kadib waxaad tegaysaa halkan oo font size numberka rabto ayaad dooranaysaa. ama waxaad isticmaali kartaa increase font size eedan loogu talagalay ayaad isticmaali kartaa, ama haddii decrease ay rabtidna eedan ayaad sidaas kale u isticmaali kartaa. Okay, waxaan ugu xigaa text highlight color oo loola jeedo in qoraalka color laga gadaal mariyo. waad dooranaysaa kadib waxaad tegaysaa halkan ay qoran tahay text highlight color, waa furaysaa and then colorka gadaal marineed ayaad dooranaysaa. waxaan ugu xigaa change case. change case waxaa loola jeedaa in farta la bedelo capital ama small loo bedelo. change case marka waa halkan change case qoran tahay, waa furaysaa. sentence case waa sentence caadi ah. aan ku laabano lower case waa smallka, farta waa ujeedaa kulli small wada noqotay. upper case waa capital wada noqonaysaa. capitalize each word midkaas kan oo ka bilaabanaya ayaa capital laga dhigayaa. This tida ay ka bilaabanaysa capital, test tida ay ka bilaabanaysa is ay ka bilaabanaysa capital laga dhigayaa. marka midkaas capital ay kaliya ka bilaabanaysa. total case waxaa loola jeedaa in markaa xarafka uu ka bilaabanayo small laga dhigo. casharkan saddexaad halkaas ayuu inoogu joogaya insha allahu tacaala. haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir, subscribe dheh YouTube channelka. casharo badan ayaa soo socda insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.